السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسروا القليد ديزاين سامر والبا كلا سعتان علمي كمبيوتر كي برامج ملتميديا عشر كان وحان ku baran doonaa sidee ayaan ku noqon kartaa qof graphic designer ah ama qof wax nashqadeeye ah. Ayaan ku bari doonaa cashirkan. Haddii aad samaysid wadooyinkan aan ku fari doono waxaan rajeynaa inaad noqon doontid qof graphic designer ama qof wax nashqadeeyo waxyaabo alifo oo waxyaabo badan isku keena sida boorarka, logooyinka, invitationska, business cardska, all of them waxyaabaha sawir lagu sameeyo image naqanayo. Kusoo dhawow alqalid designs mar kale. haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe garee gambalaalkana furo. Sidee ayaan ku noqon karaa qof graphic designer ama how to become a graphic designer? Sidee ayaad ku noqonaysaa qof nashqadeeyo ku fiican, nashqad walba loo keeno inuu hagaajiyo oo isku celceliyo waxyaabo badan kusoo daro oo wax badan ka dhimo. Marka horeyse waxaan ku siin doonaa insha Allah tilaabooyin ama wadooyin dhowr qodob aad ku raaci doontid haddii aad samaysidna aad noqon doontid qof graphic designer ah ama qof nashqadeeye ah. Qodobka ugu horeeya waxa waaye hami. Qofka waa inaad hami u haysaa waxaad baranaysid ama waxaad rabtid inaad noqotid. Tusaale ahaan waxaan rabaa inaan noqdo qof engineer ah oo dhismaha. Waa inaan hami u hayaa waxaad baranaysid ama waxaad rabtid inaad noqotid. Mar walba niyadda inaad u haysid waxaad rabtid inaad noqotid. Qodobka labaad hal abuur. Qofkan wax inuu halifo oo kusoo kordhiyo qofkaani wax kaleed cusub inuu keeno. Ma ahan wixii lagu siiyay ma ahan wax kaleed ka duwan inaad keentid. Maanta tusaale ahaan waxaa sawir loo dhahay loo noocaas inay tahay adina waxaa la rabaa noocaas inaad keentid kuwo kaleed ka sii far badan inaad keentid. qalab waa inaad haysataa qodobka saddexaad qalab inaad haysatid oo waxaa ku hagaajin doontid computer waaye qalabka. Qodobka afraad software ayaa waa inaad haysataa waxaana ugu caansan Adobe Family, Photoshop, Illustrator, InDesign iyo kuwo kale oo badan editing lagu sameeyo sida Corel Drawga. Shanaad waa inaad baaris aad sameysaa baaritaan waxyaabo hore u jiray cashiro hore u jiray inaad raadisid oo aad raaci doontid wadadaasi. Haddii intaas aad samaysid waxaan qayb bilaabatay wadadii aad ku noqon doontid graphic designer. Qodobka lixaad waa inaad bilowdaa wixii aad heshay resourcigii aad heshay inaad bilowdid aad ku celcelin aad samaysid. Qodobka toddobaad waa inaad ku celcelin aad samaysid joogteen macnaha waxaan mar walba markaad ku dhex jirtid wuxuu u baahan yahay inaad ku celcelin aad samaysid aad ku dhex jir aad samaysid. Waa qodobka ugu dambeeyay sideedad ku dhex jir waaye. Last qodobkan waa qodobka ugu muhiimsan waxaan aan samayn doono waa inaad ku dhex jirtaa mar walba aadan ka maqnaynin. Haddii la dhaho graphic designer waa inaad soo boodi kartid ama qof asxaabta inay kaa warhayaan. Tusaale ahaan waxaan rabtaa inaan qof loo sameeyo ninkaas ku fiican in la dhaho mar walba waa inaad xirfadaada aad soo bandhigtaa. Xirfadaada sidee ugu soo bandhigi kartaa dhinaca social media dhinac fiican ku soo bandhig ma ahan dhinac xun. intaas aynu kusoo gabagabeynayna. Haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe, like, share si asxaab badan ay ugu faa'iideystaan adigana aad ka mid noqotid mar walba daawadaha ugu hore ee daawada fiidiyoyada ay idin soo gudbino.